halkan aan ku sugannahay oo ah xarunta prefektiirka dowladda Jabuuti waxaa soo gaaraya sanduuqyada goobaha codbixinta ee caasimadda oo laga codeynayay laga soo ururiyay iyadoo halkan ay ka bilaabmi doonto tirintu laba toddobaad oo soo socday ololaha doorashada madaxtinimada dalka Jabuuti oo taageerayaasha ay kula kala hadlayeen labada musharax Maxamed Faarax Samatar oo ah gudoomiyaha xisbiga siyaasadeedka CDI iyo musharaxa xisbiga UNP mudane Ismaaciil Cumar Geele labada musharax ayaa ololahooda doorashada soo gabagabeeyay maalintii Arbacada ahayd iyadoo Khamiistii la nastay saaka oo Jimcaana loo dareeray doorashada madaxtinimada oo lagu soo dooran doono madaxweynaha mustaqbalka Jabuuti 5 sano halkan ayay ka codeeyeen saaka labada musharax oo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ahna musharaxa xisbiga UNP mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo musharaxa xisbiga CDI Maxamed Faarax Samatar oo iyaguba sheegay markii doorashada ay ka soo bixeen kadib in wax wanaagsan ay ka sugayaan taageerayaashooda iyo dadkii ololaha ay kula hadleen inay u codeeyaan oo codbixintana si wanaagsan ay u dhiibtaan 6 subaxnimo ayay furmeen sanduuqyada goobaha codbixinta iyada oo la soo gabagabeeyay 6 galabnimo sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Siciid Nuux ayaa waxa uu sheegay in doorashadu loo baahnaa inay si wanaagsan uga qabsoonto dalka iyada oo laamaha amniga lagu amray inay ka shaqeeyaan sugidda amniga iyo in aan gudaha lala gelin waxyaabo ay ka mid tahay rasaasta usha iyo wixii la halmaana halkan ayay ilaa caawa ka socon doontaa tirinta codadka oo ay ku sugan yihiin mas'uuliyiinta dowladda iyo waliba delegeedii labada dhinac iyada oo halkan ay ku soo qulqulayaan saxaaradaha lagu talagalay goobaha codbixinta laga soo qaaday ilaa caawa waxaa socon doonta waqti dambe tirinta codadka ka imanaya goobaha laga dhiibtay codadka ee ku yaala caasimadda Jabuuti sidoo kale doorashadan waxay ka socotay 5 gobol ee dalka Cali Sabiix Tajoora Owoq Dakhil Carta iyaguna soo gudbin doona doorashooyinkii ka dhacay gobolada dalka iyo tuulooyinka hoos yimaada waxaa la filayaa in caawa waqti dambe saqda dhexe ee habeen iyo wixii ka dambeeya uu ku dhawaaqo wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Jabuuti natiijada doorashada ee hordhaca ah iyada oo loo gudbin doono intaas kadib guddiga sare ee golaha dastuurka Jabuuti oo muddo bil ah kadib labada musharax qofkii cabasho qaba uu gudbin doono cabashadiisa haddii aysan wax cabasho ay jirinna in golaha sare ee dastuurka Jabuuti uu asixin doono oo soo saari doono natiijada kama dambaysta ah ee rasmiga oo lagu aqoonsanayo musharaxa ku guuleystay doorashadan dhacday maanta ah 10 bisha Abriil sanadka 2026